بهم قد زالت ذي الدنيا وسموا حبا قصد وراء الشيء جدك الصواب كأين هليا تذكر هذا إيمانك صحيح وإلهي القرآن قلت المامي وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى الصراط المستقيم كو إيمانك لك هلي إلهي بوحكو هنوني جد فوصا إلهي القرآن قلت المامي يا مؤمن لماذا مركا يدبط هاي إن إلهي سيقو الدفاعي إن الله يدافع عن الذين آمنوا إلهي بالدفاعي يبقى ليدكو إيمانك لك هلي إيمانك هدو حق ليه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أما هدو ضعيفه إيمانك ضعيفه هدي اللوقع عن هذه وكذب عن الرأي يدعو عيدنا وقع عن هذين هدو بداية ذلك ونسكت بقى على وبضانته ومحي وضعف في الإيمان إلهي وحوت المامين الحياة طيبة لي من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة بإلهي هذا قرصته حلال وتقتنى أجر باكو هليسة أجر بالغو هلا قبل حلال شامك استو الله تقى أجر بالغو قري حرام تانا وعكسي نار بالغو هلي إنه يقول لي وحا صور البنادم كوانو قرحي دمر له عبور له حول له ذهب له فضة له فرض له بير له وحاصل هو الوقوف حيباله لكن واحد يقول ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الماء وحاصل هو بالبركة الدنيا له وشريعة ربي مرتعنا بهم قد زالت للدنيا وسموا حبا قصد العليا صاغوا للمجد رسالتهم وأبوا إلا نورا هديا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إن شاء الله تعالى وحين كلمة كوبان كورن دون هدي ربي حكمه آية من كتاب الله إلهي القرآن كوحكت الماما يا ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون رب سبحانه وتعالى وحليه ما أكتهي سيد الرب تصال وغيالي مثال هو مهما أما تصاله qur-aanka in afartan ka badan mahmahooda ama tusaaloodba ku soo arooray oo ilaahay subxaana wa tacaala mathal uu wax ku tilmaamay amhilada inta badan waxa loo isticmaala waxaa ka mid ah shayga maxsuuska ah yacni shayga ishu ay qabato iyo shayga macnawiga maskaxdu analyse garaysa maskaxdu garato shayga maskaxdu analyse garaysa dadku kala horfahmi ogyihiin oo qofba in bay ugu dhacdaa Soomaalidu waa kuwa yiraahdaa hebel saddex shubba hadalku ugu dhaca yaani qofba in buu wax ku fahmaa waa dadku waa kala intelligent sayyi ama IQ-giisu kala sareeya shayga maxsuuska laakiin mar qura la wada gartaa sharax badan oo baahna geed haday ishu wada qabato qof waliba inuu geed yahay si toos u fahmaya ilaahay subhanahu wa ta'ala qadiyo ama arrin iimaaniyaadka ka waramaysa waxa tusaale la inooga dhigay wax isheenu ay qabato miyadan arkin baa ilaahay leeyahay ama sida rabbi uga yeelay tusaale kalima tayyiba erayga fiican yani waa kalimatu tawxiid wa al-iimaan billahi wa bi rasuli tawxiidka sida Allah subhanahu wa ta'ala uga yeelay ka shajaratin tayyibatin asluha thabit wa far'uha fi as-samaa baa ilaahay geed fiican oo salkiisa iyo xididkiisu dhulka ku eg yihiin furuucdiisa iyo laamihiisuna kor jiraan oo waqti kasta bixisaba ilaahay leeyahay ukulaha midhihii iyo wixii laga cunayay
ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون بإلهي إلهي مهماها سويدين يليا دادك وحو مهماها أما تصالها وقو يليا لعلهم يتذكرون أي كي يتذكروا سيوان توبان وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. هذا بقى أيها الأحبة كلمة وناكسن أما كلمة توحيدك أما إيمانك إلهي وحكوت المام يينو لم يدي هي جيد لولك كتاغن وأصل كيسو في عين هي جرد وناكسن له وحدد وناكسن له وفرعي سامن لامه سنكر بحان ومربحية. إذن إيمانك مدولي لغو قوسته أدونك waxa uu kaloo leeyahay iimaanku midho qofka bini aadamka uu dhadhamiyo midho bulshadu markay iimaan yeelato ay dhadhamiso iyo midho aakhiro lagu goostaba. haddii uu daciifo iimaankuna oo xadkii la rabay uu gaari waayo wuxuu noqdaa geed aan caleen lahayn oo midho lahayn oo wax la harsada lahayn oo mararka qaarkood hadduu sii daciifana dabayluha ay lulaan bal ay ridi karaan. noloshaynu ku noolay waa imtixaan. hadduu qofku iimaankiisu xoogan yahay oo qawi yahay midho uu ka goosto adduunka uu ku helayuu leeyahay iyo midho aakhiro lagu helayaba. bulshadu hadday bulsho muslim oo iimaankeedu iimaan dhaba u yahay midho ay adduunka ku helaysaa jira iyo midho aakhiro la goostoo lagu helayo. haddii aad weydo midhaha adduunyo ama bulshadu ay weydo midhihii adduunyo iimaanka laga goosanayay macnaheedu waxa weeyaan iimaankeeda ah maxay ayaa daciif oo liita. yani geedku hadduu midho bixin waayo maxaa jira ama caleen bixin waayo يعني waa abaarsaday weeyaan mushkilad baa jirta. وإلا geedku hadduu caadigiisii yahay wuxuu noqon lahaa geed midho bixiya oo caleen leh oo la harsan karo jira. bal aan tusaalayaal bixiyo. ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay mu'minku markuu dhab yahay ee jamaacada muslimiinta iimaankoodu saxiix yahay ilaahay wuxuu ballan qaaday inay gaalada nasriga in la kaseen guul helaan. وكان حقا علينا نصر المؤمنين با إلهي إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وأن أهيلنا يا با إلهي سبحانه وتعالى رسول شيء يكوى إيمانك لقاه لبنولش الدنيا يا مالنت آخرة با. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إلهي القرآن كوحكوت المام يا مؤمن نمضوا مركا يدبطة هاي إن إلهي سيقو الدفاعي إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إلهي بالدفاعي يبقى اللي يكوى إيمانك لقاها لك. إلهي وحاوت المام يا إيمانكم مركو النبي هاي ولاية محمية إني إلهي إنشور رسكي ساما محمية دي سيني قليا دولة ده يري الدولة إلى الدولة وأول بحلف استراتيجي على صحيحاتي وي فرحان واي وحي سليين محي دولة حق بدن بحماية دي أياد إلى أنت هذه قشي. إلهي وحلي الله ولي الذين آمنوا. إلهي با إلى أن يكوى إيمانك لغاها لي. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا والذين وأن الكافرين لا مولى لهم. ورانكو حشيغا يا جدك الصواب كأين يهليان تدكو هدي إيمانكو دو صحيحي. وإلهي وحو قرانكو تلماميا وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى الصراط المستقيم. كو إيمانك لغاها لي إلهي با وحكو هنونيا جد توسن بل قرانكو وحو تلماميا in dhulka lama kansiinayo ama gacanta loo gelinayo wuxuu tilmaamaya khilaafatu dunya maamulka adduunina iyaga gacantooda galayo. ولذلك با إلهي قرآن كوحكو تلمامي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. إلهي وحو يبوهي بالله نقاضي كوي لبدا الشرط لغا هلو الإيمان
والعمل الصالح إيمان iyo camal suuban cidda laga helo ilaahay maxay leeyihiin buu leeyahay aakhiraha hadaanugu kama warramayo waxaan ka warramayaa waa maxay waa adduunka aynu joogno la yastakhlifannahum fil ardi baa ilaahay yidhi dhulka alla makansiinaya kama istakhlafa aladiina min qablihim sidii kuwii iyaga ka horreeyey khilaafo loogu dhiibay wala yumakkinanna lahum diinahum alladii irtadaa lahum diintooda baa ilaahay subxaanahu wa tacaala u taagaya oo u hirgelinaya wala yubadilannahum min bacdi khawfihim amna boqahooda dabadeed nabadgelyaa ilaahay ugu bedelaya waxaanaan sheegayaa ma theory ba ma nadariyaat ba maya waa xaqaa'iq xagga rabbi ka timi duulkii fuliyey wixii rabbi amray ilaahayna yaboohiisii wuu u fuliyey nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu intay tiro leekaayeen mar nabigoo quru ahaa dabeetana afraad dad yar baa rumeeyey kadibna waa hijroodeenoo madiinay degeen madiina lagu soo wararo way istifaaceen gruub yar iyagoo ah in 50 sannadood ka yar ayay dunida dhammaanteed kaga taliyeen intii la yaqaanay in 50 sano ka yar bay dunida dhammaanteed kaga taliyeen macnaheedu waa maxay ma technology bay dunida ka sarreeyeen maya laba dawladood oo waaweyn baa dunida ka jiray markaa waxaa jiray Persia iyo Romanski waa laga ciidan badnaa waa laga xoog badnaa waa laga systemkii dawladnimo marka loo eego boqortooyin rasmiya waa laga tiro badnaa xaggay wax ka dhaceen ilaahay bay wuxuu amray fuliyeen isna wuxuu u ballan qaaday ayuu xaqiijiyay less than 50 years bay dunida kaga taliyeen sadaradeed baa ilaahay wuxuu ku leeyahay wadhkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ard waxa xasuusataan baa ilaahay ku leeyahay saxaabadii marka haydeen in yar oo la istidcaafsado la dulaysto laga xoog batay takhaafuna an yatakhatafakum an-nas wa ka'absanayseen badadku inuu idin boobo bariga yareeyeen dadkaba ka cabaqayseen in la idin boobo ka warrama baa ilaahay yidhi fa awaakum wa ayyadakum bi nasri oo ilaahay idin hooyay oo idin ku xoojiyay isaga guushiisa warazaqakum min at-tayyibaati la'allakum tashkurun hadaba waxaan leenahay saxaabadu mucjiso cirka ka soo dhacday ma ahayn bini aadam markii hore gaala ahaa uu reer miyi ahaa waan waxba haysanin oo saxaaraha carbeed ku nool oo dunida dadka ugu dambeeyay ka mid ahaayeen oo sanama yar yar iyo dhagxna caabuda laakiin waxay qaateen cultural revolution bay aqbaleen waxay aqbaleen noloshooda inay wax ka bedelaan markay noloshooda wax ka bedeleen bay iimaan iyo mabaadi'dii samada ka timay aqbaleen markay aqbaleenna ilaahay waaqocoodii nololeed ayuu wax ka bedelay wuxuu ka bedelay oo noqotay inay dunida iyagu dib u saytareeyaan markay iyagu aqbaleen wixii ilaahay uu amray ayaa ilaahayna wuxuu u rumeeyey wixii uu yaboohay ilaahay wuxuu u ballan qaaday intay nidaamka ku dhaqmayaan sida yihiin inaan gaalka gacan sareynaynin walan yaj'al Allahu lil kaafiriina 'ala al mu'miniina sabiila ba ilaahay wada ay idin kaga koreeyaan ilaahay idin yeeli maayo inta idinku xaqiiqada haysaan ilaahay wuxuu u ballan qaaday nolosha adduunta ay joogaan nolol caafimaad qabto fiican inay helayaan walaw anna ahla al qura aamanu wattaqaw لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض هدي ددك مغالوين كدغني با إلهي لي إيمان يا لك عبس تقوى لغا هلو عركان وفرينا با إلهي لي بركات كيسا يا دولك بركاديسا وحي إلهي تلمامي إني عزي يشرف إليهم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين إلهي وحو تلمامي إني الحياة طيبة ليهم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة با إلهي عند عملك صوبان سميسة إلا بيد الدقبتك الدوناء إيمان لك هلبا إلهي فلنحيينه لام ينون بالقوة استعماله
luga alcarabiya yani wax lagu adkeeyo waan noolayn doonaa baa ilaahay leeyahy xayaatan tayiba nolol fiican baan noolaynayaa baa ilaahay leeyahy aakhira iyada markay tahay aakhira waa masaakina tayibatin fi jannaati cadnin dalika alfawz alcadiim qur-aan badan oo aakhira ka warramayaa soo arooray laakiin qur-aanka aakhira maanta ma akhrinayo waxaan akhrinayaa maanta wuxuu yahay maxay iimaanku adduunka midha ma ku leeyihi mise inaad ilaahay rumaysay waxaad sugaysaa un midhahiisa inaad aakhira hesho ma aakhira midhihiisa la helaa mise adduunkanaynu joogno ayuu midha ku leeyihi waxaan leenahay ilaahay wuxuu tilmaamayaa adduunka aynu joogno inuu midha ku leeyihi ma dhacday oo taariikhda ma lagu hayaa ma suurto gashay haabaan leenahay taariikhda waa lagu hayaa waa suurto gashay in 1000 sannadood ka badan bay muslimiintu ahaayeen awlaa dawla fi lcaalam dhaqaale ahaan cilmi ahaan aqoon ahaan dhul ahaan everything maxaa dhacay markay ka tageen ee ama dhammaan uga tageen ama qaybihiisii muhimkaa ka tageen markuu iimaanku daciifay marka iimaanka qaybo madoo ka midii forgeries ka noqotay ama wax afka laga sheego inuu noqday ee aan dhaqan la soconin nolosha adduunku way isbedeshay xagga kale isu bedeshay dabeetana qofka muslimkii wixii uu baahnaa muu wada helin jamaacada muslimkiina may helinin waayo ilaahay baa wuxuu leeyahy waman acrada can dikri faina lahu maciishatan dankan baa ilaahay yidhi cidda haddaba waddadaa raacda waxaasaan siinayaa baa ilahay yidhi cidda se ka jeesata noloshaan ku cidhiidhiyayaa baa ilahay yidhi waa isla qur-aankii ilahay wuxuu leeyahy haddaad raacdaan iimaanka iyo camalkaa saalix waxaa haddaad samaysaan ka qof ahaan iyo ka bulsho ahaanba haddaa u samaysaan waxaa iyo waxaa iyo waxaa iyo waxaasaan idin siinaya inta adduunka joogtaan aakhirana iyadu waaba dee meeshii abaalmarka rasmiga ahaa lagu helayay haddaad se ka weecataan baa ilaahay leeyay iyadana abaalmar kalaan idin siinayaa baa ilahay yidhi haddaad ka weecataanna abaalmar kalea leedin waa maxay abaalmarka kale faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acma adduunkana nolosha waan idinku cidhiidhi aakhirana idinkoo indhalaabaa imanaysaan baa layidhi adduunkana waa laydinku cidhiidhayaa aakhirana idinkoo indhalaabaa imanaysaan su-aashu markaa waxay tahay haddaba ayuha alaxiba qof ahaan markuu iimaanku dhab noqdo wuxuu qofku helaa arida nafsi naf ahaan inuu satisfied noqdo wuxuu helaa aliطminaan alqalbi qalbi ahaan inuu xasilo qofka rumaysan aqwa shay fi lcaalam kulli inuu ku xidhan yahi rabbigii inuu ku xidhan yahi ilaah wax waliba gacantiisa ku jiraan dad iyo dhagaxyo duniba maamula markaad rumaysan tahay rabbigaasi inaad jundigiisa tahay qofku waa muطma'in alqalb alaa bidikri illaahi taطma'inu اlquluub baa ilaahay tilmaamaya haddaba waxa aan soo sheegnay waa wuxuu adduunka lagu helayay dadka muslimiinta ilaahay u ballan qaaday aakhirana ilaahay wuxuu leeyahy in aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati kaanat lahum jannaat اlfirdowsi nuzula khaalidiina fiiha laa yabquuna canha xiwala kuwa iimaan iyo camal saalixa laga helay aakhiro jannooyinka firdowse bay leeyihin deganaanshiyo meel aanay rabin inay ka guuraan baa ilahay yidhi laa yabquuna canha xiwala dunida wax kastoo aad hesho waxaad soconaysa malaa wax ka fiican baa jira raadcee insaanka dunida ku noole waa caynka ah insaan intuu haylo yidhaahda war waa bes intan baa ku filan inta badan ma jiro wuxuu is leeyahay kordhi laakiin teer ilaahay wuxuu leeyahay iyadu laa yabquuna canha xiwala bedel kama rabaan waa meel qofku markuu tago more than satisfied uu noqonayo waa meel aanu bedel kale raadcaynaynin in aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati lahum jannaatu naciim khaalidiina fiiha wacd allahi xaqa wahuwa alcaziiz alxakiim su-aashu haddaba waxay tahay aan idin weydiinayaa axwaasha muslimiinta maanta markaad eegtaan ama idinku is eegtaan ama dhulkaynu ka nime aynu eegno waxaan qur-aanku sheegaya ma haynaa mise ma hayno ma inoo xaqiiqiroobay waxaan mise inooma xaqiiqiroobin
guul ma haynaa oo gaalama ka xoog badannay difaac ma haysanaa waddo saxa ma maraynaa khilaafaad ma dhisannay istikhlaaf dunya diinteenna ma layna makansiiyey mise waaba ka cabsanaynaa inaad muslim sheegato waxaad leedahay waaba lagu dilay ama irhaab baa lagu sheegay ama waxee siyara qari yaan lagu ogaanin inaad nin muslimaba tahay nolol tayiba ma haynaa mise nolol aynu badda ka doorannay inaynu ku dhacnaa baynu haynaa xaggee wax iska weydaarteen markaa that's the question qur-aanku sidan buu sheegayaa innaga nolosheennina kama muuqato xaggey wax ka qaldayin xaggey wax iska weydaarteen waxay leenahay waxa wax iska weydaarteen innagaa buuxin weynay shardigii laynaga rabay kuwii buuxiyey ilaahay wuu u dhabeeyey way heleen bini aadamka meesha noloshiisa laga baadhaa waa taariikhdiisa waxaa la hubaa taariikhda bini aadamka soo martay oo dhan ummaddii wakhtiga ugu gaaban nolol dhammaanteed ku bedeshay waa noloshii muslimiinta qudha taariikhdii islaamiga ahayd maxaa haddaba maanta jira ka qof ahaan wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina aliimaana la yakhlaq fii jawfi axadikum iimaanku wuu baaliyoobaa buu nabigu leeyahy waa duugoobaa gudihiinna iimaanka ku jira waa duugoobaya sida maradu dushiinna ugu duugowda buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni dacfuliimaan baa dhacaya yaqiinta iyo iimaanka iyo wuxuu dadku rumaysayin baa dhacaya waxaa ku badanaya dadka shubahaadka waxaa ku badanaya shahwaatu nafsiga waxaa ku badanaya waxyaabaha diinta ka fogeeya dabeetana hoos bay u dhacaya fasalu llaha an yujadid aliimaana fii quluubikum buu nabigu yidhi war ilaahay weydiista inuu iimaanka idiin cusboonaysiiyo ka bulsho ahaan ka jamaac ahaanna wuxuu nabigu leeyahy yuushiku alumamu an tadaaca calaykum waxaa la arkaa buu nabigu leeyahy inay ummaduhu isugu ken yeedhaan oo idin boobaan sida dadka xeedhada isugu yeedhaan ay u boobaan yani casuumad haddii la sameeyo oo xeedho laydin dhex dhigo dadku muxuu sameeyaa nin waliba dee intii uu ka qaadi karaabuu ka qaadaa wuxuu nabigu tilmaamaya waxaa dhici doonta inta dadku isugu ken yimaado dunidu in laydiin boobo sida xeedhada loo boobo saxaabadii markaa way yaabeen annagoo muslim oo ilaahay rumaysan oo kitaabkiina dhex yaalla caynkana inta dunidu isugu timaadana la boobaya waayo waa niman noola iyagoo yar in ilaahay u hiiliyo ay xoogaysteen oo iyagu dad iska dhiciyeen nimankii caynka ahaaba haddana dib loo boobi doonaa way fahmi kari waayeen su-aal bay markaa nabiga weydiiyeen waxay idhahdeen wa min qilatin naxnu yowmaydin ma intaanu yaraanana la boobi doonaa bay idhaahdeen nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi bal antum kaiir tirada xaggeeda ma yaridin waa idinkoo tiro badan ayaa haddana noqon doontaan wax la boobo waa qariib oo haddaa sidee wuxu jiraan iyagoo yar bay xoog lahaayeen wax iska dhiciyeen hadhow intaa badataan idinkoo badan ayaa haddana laydin boobayaa baa la leeyahay xaggee wax ka jiraan nabigu wuxuu ku yidhi walaakinakum gusaaun ka gusaa'i sayl tira ahaan waa badantiine laakiin taya ahaan baa waxaa tihin daad xoortoo kale buu nabigu yidhi daad xoorta ma taqaanin daadku markuu socdo waxaan xashiish iyo xumbo iyo waxa dul socda maaragta waxa dul socda waa waxaan jihaba lahayn halka daadku u socdaa unbay u socotaa laan kastoo geedoo dooxa ku soo jirta marka soo mara badh bay la hadhaa yacni wasni ma leh oo itijaah ma leh oo meel looma socdaa weeyaan waxau nabigu tilmaamayaa inta dacful iimaanku idinku dhaco idinkoo tiro badan baa waxaa noqon doontaan waxaa cid walba iska raaca geed waliba qaybta kala hadho wasni aan lahayn xaggay biyuhu u socdaanu isaga socdabaa soo bixi doontaan markaasuu waliba nabigu wuxuu raaciyey walayanzicanna allahu min suduuri caduwikum almahaabata minkum maanta waa laydinka cabsadaa buu nabigu leeyay laakiin markaana cadowgana
baqahaba laga siibi doonaa waaba idinku soo carari doonaa buu nabigu tilmaamaya maanta muslimka cid ka baqata miyaa jirta cid ay argagax gelin karaan miyaa jira waaba la idin boobi doonaa buu nabigu tilmaamaya cidina idinka baqi mayso marka kan oo xaggee wax ka xumaadeen nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam walaa yaqdifanna fii quluubikum alwahn idinkana qalbiyadiina wahni baa degi doona markaasay waxay idhahdeen wahnigu waa maxay haddaba alwahnu fi luga waa dacfi dacfigani muxuu yihi xub dunya wa karaahiyat lmowt buu nabigu yidhi adduunye jacayl baa inta u dhaqaaqdaan saa xoole u raadinaysaan unbaa dad iyo dunyaba maranaysaan baa la tilmaamaya waxa noloshaba ka arki doontaan waxa weeyaan maxay dollarku ma idin muuqan doonaa nolosha wax kale oo qiimo leh waqtiina ka muuqanaya ma jiri doonaan haddaba ayuha alaxiba iimaanku markuu jiro ee uu dhab yahay kow waa caqiido yaqiina oo qalbiga degta ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy inama almu'minuun aladiina aamanuu biاllahi warasuulih ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون إيمانكم أصل يفرع بولي محال يدي إنما المؤمنون مؤمن كربطه وحويان بايل هيدي الذين آمنوا بالله ورسوله وقوة إلهي الرسول بالرميسان ثم لم يرتابوا أن شكرنين باليدي قاربه جرى إلهي الرسول بيت الرميان هذا شكسان إنهم ينشك سنة فلا سؤال دي ويديه marka aynu dhakhtarka u tagno hadii lagu yiraahdo halkan waxa degan khabiirka wadnaha dunida oo dhan ugu khabiirsan adna waxoogaa wadna xanuun ku hayo markaad u timaado maxaad yeelaysaa whatsoever uu ku yiraahdo aad rumaysanaysa Soomaha waad sidhiibaysaa hadduu ku yiraahdo khatar baad ku jirtaa maysaan baad ku soconaysay imika hal lagu dhigo sariirta ma odhanaysaa war may gurigiiba ka soo noqonaya soo seexinaysaa maradii lagu yiraahdo hadda ma noqon kartid waad seexanaysaa waayo waxa kaa dhaadhacay inuu ninkani yahay expertka ugu weyn dunida saaka ma maadaama aad rumaysatay inuu yahay expertka ugu weyn dunida warkiisa waxaad u qaadanaysaa inuu yahay xaqaa'iq waxaan uu ka hadlaya dabeetana waxaad ogashay inaad jiifsato ka waran haddaynu idhahnaa ilaahay kitaabkiisa ma lagu liibaanaya mise lagu liibaani maayo su-aal baa imanaysa warniga armay dhici weydaa baabaad sileeday idan maxaa jira waxaa jira kalsoonidaynu ilaahay ku qabnaa yar ilaahay wuxuu ina leeyahay walaa yunabbi'uka mithlu khabiir allaha khabiirkii siduu u warramayo cid kuugu warramaysaa ma jirto ilaahay wuxuu inoo sheeganayaa inuu yahay maxay wa fawqa kulli dhi cilmin caliim aqoonoo dham inay xaggiisa jirto khibradoo dham inay xaggiisa jirto xikmadoo dham inay xaggiisa jirto mu'minkii sidaa rumaysnaa maalan gabadh buu soo kaxeeyey nebi ibraahim soo maaha haajara la odhan jiray oo umushay oo dhashay maxay nebi ismaaciil oo yar sidata intuu qarbad yaroo biyaayo intii mira siiyey ayuu meel laba daga ah keenay meel aan bini aadam joogin hadda cidla ah dabeetana intuu halkaa dhigay buu kaga dhaqaaqay waayo ilaahay baa ku yidhi halkaa cidladaa intaad geesa ka tag uu ka tegey su-aal bay dhowr goor weydiisay waxay ku tiri waar ma meeshaan aan cidba deganay baad nagaga tegaysaa lamuu hadal uu iska socday way ku ced markii dambe ay su-aasha bedeshay su-aal kale weydiisay waxay ku tiri ma ilaahay baa ku yidhi halkaa dhigoo kaga tag dabeetana wuxuu ku yidhi haa nebi ibraahim wuxuu yidhi ilaahay baa wuxuu igu yidhi halkaa intaad digta kaga tag gabadhaasi maxay ku jawaabtay idan laa yudayicunaa bay tidhi haddii ilaahay ku yidhi halkaa dhigoo kaga tag haddaad dayicmi mayno iska tag bay tidhi mar hadduu amar ilaahay yahay gabadhani maxay rumaysnayd markaa iimaankeedaan shaki ku jirin waxay rumaysnayd hadiiba uu rabbu samaawaati walardi uu yidhi inta halkaa la dhigaha lagaga tago rabbu samaawaati walardi inaanu dayacayn inuu ku filan yahayna maxaa dhacay marka biyihii way ka go-een ilmihii yana naaskii way u weyday waxay nuujiso way ka duldhaqaaqdo meel bay socsocotay
kadib baa ilaahay malag u soo diro meel buu baalka ama cidhifta ugu dhuftay dabeetana biyaa uga soo baxay biyahan cabbaa la yidhi ilaahay wuu nooleeyey iyadiiyo inankeediiyo dadkeediiba way dhaqmeen waa biyaynu ilaa hadda cabno zamzamka soo ma maqashaan zamzamka ayaa loo soo saaray islaantaa tidhi ilaahay hadduu ku yidhi halkaa dhigoo iska tag khalaas iska tag aniga ilaahay ima dayacaya bay tidhi mar haddaa ilaahay amarkan uu bixiyey ilaahay ma dayacina biyaynu ilaa maanta ceelka aan gurina ilaa maanta datan la cabo islaantna baa loo soo saaray innagana si qadiyadda laynoo xasuusiya waxaa la yidhi markaa xajaysaan xajkiinu asixi maayo ilaa islaantaasi labadii buurood ay dhex carartay inaad idina dhex carartaan mooyaane asacyu bayna asafa walmarwa sooma maydan maqan ina asafa walmarwata min shacaa'ir illah waxaa layna xasuusinaya dadkii ilaahay isu dhiibay inaanay jabin ilaahay dadkii rumeeyey inay yihiin maxay dad guulaystay sida ogeed ayuha alaxiba iimaanku waa caqiido guntanta oo ah inaad rumayso ilaahay inuu keli yahay inuu caliimiyey inuu khabiiriyey dunida waxa khubaro joogto oo dhan inuu isagu caqligan yar siiyo abuuray waxay expert ku yihiin inuu makhluuqaadkiisa yahay wuxuu isagu abuuray binaadam ma wax cusub u sameeyaa never wuxuu isku walwalaqaa wixii ilaahay abuuray aqoonta la sheegayana waa maxay waa inaynu fahamno sida rabbi uu waxa kan u dhigay waa intaa markastoo loo ka mida looga physics ama chemistry ama kan la fahmo macnaheedu waxa weeyaan waxaynu dhigay idan waa iktishaaf waa invention waa waxaad wax ka ogaatay dunidu say u jirtay wax cusub bini'aadamku kuma kordhiyo dankii baynu isticmaalnaayo la yidhaha waa technology cusub ama wax cusub oo la sameeyey qofka mu'minkaa marka iimaankeennu hadduu noqdo iimaankii ibliis oo kale ibliis oo inuu ilaahay rumaysanyay ma ogidin ibliis ma wuxuu yidhi ilaahay ma jiro maya sujuud baa la yidhi wuxuu yidhi maya yeeli maayo ee maxaan yeelayaa anaaba ka fadli badan ka adleeday sujuud buu yidhi anaa ka fiican ibliis muranka wuxuu ka bilaabay markaa inuu leeyahay ilaahu taadu sax ma ahayd tayada ka saxsan waxaana qur-aanka inoo sheegaya ibliis in lagu yidhi waa lagu eriyey uu yidhi rabbi faandirnii wuu baryayay ilaahay rabbinimona wuu ogolaa rabbi faandirnii ilaa yowmi yubcahuun buu lahaa ilaahay u ikaadi ilaa iyo inta dadka lasoo bixinayo xataa aakhira wuu rumaysanyay ilaahu inta bacdiga uu dhacayo intaa haddaba nolosha halaysiiyo laakiin muxuu diiday wuxuu diiday awaamirta ilaahay inuu hogaansamaado idan ayuha alaxiba ilahay wuxuu leeyahy ilaa ibliisa abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin malaagtii waa wada sujuudaday bay leeyahay ibliis mooyaane isaga maxaa ku dhacay abaa wastakbar baa layidhi ilaahay awaamirtiisuu diiday waana isweyneeyey astakbarta am kunta min alcaaliin baa ilaahay weydiinayay war miyaad isweyneynaysaa mise marka horead nin weyn ahaydoo hoos lagu soo dhigay ilaahay baa weydiinaya idan haddaynu ilaahay diidno awaamirtiisa diidno waxa weyna faray diidno natiijada waxa weeyaan inaynan helaynin inaguna maxay wuxuu ballan qaaday iimaanka xaqa ahi markaa ugu horreyn waa caqiida waa yaqiin qalbiga degta oo qofku kalsooni ku qabo ilaahay subxaana wa tacaala inaan cidina ka cilmi badnayn cidina ka khibrad badnayn wuxuu ina farayna inuu yahay wixii u saxsanaa waxa uu inoo sheegayaan inuu yahay wax danteennu ku jirto waa inaan ku khasaaraynin sharciga maxaa loo soo dejiyey ma in laynagu ciqaabo mise in wadada saxda laynagu tusiyo ilahay wuxuu leeyahay diinta waxaan u soo dejiyey maa jacala calaykum fi ddiini min xaraj baa ilaahay leeyahay in laydin dhibo sharciga looma soo dejin baa ilaahay leeyahay ee waxaan u soo dejiyey inaan saxa idiin tilmaamo inaydan jiir noqon bini aadamku dawooyinka iyo waxaan marku tijaabinaya maxaa lagu tijaabiyaa jiirka laakiin aadanaha ilaahay wuxuu yidhi walaqad karamnaa bani aadam aadanu waa karaamaysayi ma aha markaa aadanu wax lagu tijaabiyo kolba mabda ku eeg shuuciyad ku eeg kan ku eeg 70 sano marka shuuciyad lagu wada in la yidhaha shaqayn mayso okay laga bedelo mid kale ku eeg 100 sano marka lagu wada la yidhaha shaqayn mayso okay ka bedel mid kale ku maha bini aadamku nooca baa ilaahay leeyahay ilaahay wuxuu leeyahay waan idin karaameeyay laakiin the right way-na waa anaa idin siinaya tijaabaha gelina qofka bini aadamka ayaan tijaabo la gelin saadaradeed baa ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala anaa idin siinaya wadada sax ee la maro haddaba iimaanku waa yaqiin qalbiga degto qofku rabbigii kalsooni ku qabo
ومر لبعض وأعمال صالحة وعمل صوبا عمل كصوباني عباد لي وأخلاق بولي وشرع لي ودقم بولي وبحث علمي لي وحودا هو عمل صوبا وعمل لنا وظفرين إنه سمينه ولينا يريد بدنا مسكحة كو أديك سدا بدنا شرع قايدين فرعيه ستة صراع لكن دمانتي ووح لينا فرعي هذا بقى أيها الأحبة إيمان كاسي وانو زيادة وكراه وانو نقصامة وضعيفة إيمان كو زيادة وحكو زيادة كو بالأدلة markaad garanaysa adilada diineed Soomaaliya markaad joogteen waxa laga yaabaa in su'aalo badan la isweydiin jirin waayo bulshada dhan baa muslim ah laakiin markaad halkan timi waxa timi maxay mu'tarak diiniya meel diin iyo la isku haysto la kala gadisay halkan su'aal baa ka tagan ilaahay ma jira mise ma jiro saddex baa mise saddex ma aha adigu inuu ilaahay kali yahay waxa ku daliila halkan su'aal baa la isweydiinayaa nabi maxamed ma nabi baa mise ma aha adoo waxaad rumaysantahay inuu nabi yahay maxaa kuugu daliilay inuu nabi yahay maxaad ku cadaynaysaa how you can prove saad u cadayn karaysaa waxaa laga yaabaa axad alkitaab hal kitaab oo nin caalim oo muslim qoray buu 1200 oo daliil oo nabi maxamed nabinimadiisa cadaynaya ku qoray laakiin adigu intaad ka ogtay markastoo aad adilada barato iimaankaagu wuxuu goobaya yaqiintaada kobcaysa سواء كما مركز تأذ أوجاته حقائق بدنه علمي وسجيسة اللي تريتان كيس يكل النمديس وقرآن كقو قرآن وسنة النبي كقو تعالى الدلة عقلية مركز تأذ برته الدلة سجيسة النبي محمد نبي النبديس هي الرسالة دي ستلمامسة إيمانك أقو كورية كو إيمانك وحقوق قرآن مركز بالدليل العلمي دليل علمية وحكراكو كرة بالطاعة عبادتنا وكرسة إلهي الذكر جيس يورد جي الصلاة يا عبادات كهدات بادسو يقين تادو ينوي كرسة عكس جروا لمد مركز تو عبادات دادو يراته إيمان كأنه وسيق عريا قارد كسوة تقانين ملوه مركز هراء بصلاة نوي وي مركز دمنا محاكو دعا way qaadaan way si ضعيفان iimaankaagu si qaadaya hadaad beeri weydo adilo u kordhin weydo xaga kale uu soconaya uu si ضعيفaya waxa kugu badanaya shubahaadka maalin walba su'aal cusub iyo wax cusub baad maqlaysa waana jawaabna u garanaynin shakigaaba bilaabmaya marka kan ilaan maad baranin diintaadii khubaro gaalnimada ku khubaraana way seesheen إذا وحى صايرانا يا محي وحى صاد ضعيفة وحى ترميسني إلهي وحوله وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ضدك هدي إلهي آيات كيس اللغو أخريه إيمان باو كرده وهي آيات وأدلة كونك إلهي كورمية يسود ولسي نولا الشيء تاريخ ذاتو كورمية أنبياء دي الرسوشية ضدك وحساب آيات كإلهي مركز طالغو أخريه بالي إيمان باكو كردية إلهي نوحي نقول فاعلم أنه لا إله إلا الله نبي محمد بالقولي أقوانو يارو ألا إنو كلي كحق لقو عابديه إذن علم الله بهاي أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب إلهي وحلي ميو سميهين كأقوح لقو سودتشي حق ربك سودة غير حقيه ميو لمد يهبا إلهي إليك إنالا haddaanad waxaad rumaysan in garanaynin dawaad indhalaaday indhuhu waa adawaatul cilmiga meelahay ka bilaabmaan ilaahay wuxuu leeyahay wakadalika nuri ibrahima malakuta asamaawaati walard waliyakuna min almuuqiniin nabi ibraahim cirka iyo dhulka iyo mulkiga allaan wax ka tusnay baa ilaahay yidhi maxaa loo tusayey waliyakuna min almuuqiniin baa ilaahay yidhi si uu u noqdo kuwa ilaahay yaqiinsan iimaankoodu koriye haddaba waxaynu u baahanay dhulkan aad timaadeen shubahaadka idinku tiro badan waxaynu u nimid dad aynan la diin ahayn la caqiida ahayn la dhaqan ahayn waxa badan dad aan diinba rumaysanayn atheists mulxidiin waxa badan dad diimo kala rumaysan
idan waxaad u baahan tahay diintaada inaad baratid haddaad rabto inaad qof muslima sii ahaato waxaad u baahan tahay inaad caqiidadaada baratid can cilmin inaad ugu qanacdid inama almu'minuuna aladiina aamanuu biاllahi warasuulih uma lam yartaabuu baa ilaahay yidhi iimaanka waxaa dacfiga ku rida aljahlu biاllah inaad ilaahay jaahil ka noqoto iyo sifaadkiisa ilaahay subxaanaه watacaala huwa alhaadi waa ka xanuuniya makhluuqaadkan oo dhan haddaad daraasayso ilaahay wax walba wuxuu ku hanuuniyay siduu u noolaan lahaa cid walba farsamadeedii ku noolaan lahayd baa la baray min quraanjo ilaa ka weyn cid walba farsamadu isku difaaci lahaa baa la baray cid walba farsamadu reproduction u samayn lahaa u tarmi lahaa baa la baray idan khalqiga xataa haddaad daraasayso makhluuqaadka ilaahay iimaan baa kuu kordhaya waayo system aan cidi ka dambaynin dunida ma jirto yani miyaad rumaysanaysaa magaaladan oo saan u dhisan haddii lagu idhaha cidiba ma dhisin iyadoo taagtaagan unbaa loo yimi may suurtagaltay waay aad u rumaysan weydi mayna iska suurtagal ahayn inay iska dhisanto maya maskaxdaada waxa ku samaysan waxa la yidhahdaa system isku inaanay iska samaysmin wax systematic ah magaaladu waa systematic waday leedahay guriyay leedahay dhismay leedahay design bay leedahay qaab buu samaysantay maskax ahaan baa waxa kugu program garaysan waxa systematic inuu jiro cid maxay systemka u dejisay saadaradeed ilaahay subxaanaه wa tacaala iyo sifaadkiisa haddaad barato waxaa kobcaya iimaankaaga kullamaa alle iyo sifaadkiisa aad aqoontaadu kugu yaraatana ضعف baa kugu dhacaya waxaa iimaanka kordhiya التفكير في آيات الله الكونية والبشرية والشرعية inaad ka fakertid ilaahay aayaadkiisan kowniga afalam yanzuruu daasaa ilaahay qur-aan ku leeyahy afalam yasiiruu wardadku miyaanay arkayn baa ilaahayna leeyahy qul unzuruu maada fi الsamaawaat eega baa ilaahayna faraya qul siiruu fi lardi war bal dhulka socda oo saan makhluuqaadkan iyo dadkan u abuuray arka baa ilaahay leeyahy idan makhluuqaadku si dhaba looga fakaro oo ilaahay wuxuu leeyahy waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka waxaynu u baahannahay marka iimaanku ilaahay xuskiisa iyo tawxiidkiisa iyo barashadiisa iyo weynayntiisa iyo istikfaarka wuu ku koraa kullamaa aynu waxaa badsanana iimaankeenu wuu korayaa wabilcaks kullamaa aynu xagga kale u soconnana iimaankeenu wuu yaraanaya ولذلك marka macaasida iyo waxa kale la joogo mesela nabigu wuxuu leeyahay la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن حديث كانوا فرسوا النبي يقول لي إنك زينيسنا يا مزينيستو يسقوا مؤمنة معناه ده مقال بابا maya zinada laguma gaaloobo laakiin waa min alkabaa'ir macnaheedu waxa weeyaan iimaankaa daciifay iimaan kaamila qof lihima zinaysto waayo iimaanku hadduu dhammaystiraya isagaa celiya xumaha qofka iimaankaa ka joojiya laakiin haddaad aragta nin suuqaba aan ka soo jeesanaynin macnaheedu waxa weeyaan wuu sii socdaa iimaankaa ka daciifay haddaad ku sii wadana jarkaad ka dhici walidalik hadduu iimaanku xoogan yahay iimaanku waa controlka qofka waa waxa qofka mar iyo hamarin yidhaahda ma aha waad baahan tahay baahidu waa shay kale مثلا نبي يوسف إلهي قرآن كأنه قول رمية نبي يوسف حكوا دعي نمدى اللي يراه وان حاصل هاي وقريبة والله أدون صدي وقبر دي أدون سنة سيئو يرنسو وقبر قروح بدنا ايتهي وبغرد دا ايتهي وقرع لا كهالشيء وحاسو دنبا يسوي تبي من هاسيلا دبر سو دو دبي تنوحوا لي معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي ما صورتك على إلهي بان كما كان قال يقول لي بحاول ديدا وباهي طبعا ونندى اللي يروى مركو رقو وحوق بدين ومر لباد خير مالي وباهي دواهيسا ومر صدحات والله أدون صدي وقفك أدون كاهي شرف بدنه إلى شدا مالي
waa marka afraad waa qariib qofku markuu meel aanu u dhalan jooga wuxuu isdhaahdaa ceeboobi maysid meelihii adeeradin joogin iyo abayaashin way ilaalin jirteen soo maaha laakiin halkan waxaad leedahay yaa ceeboobayaba cidba ku garan maysa ceebta waa ku qaban maysaad leedahay waxaas bini aadam wixii ku ridi lahaayoo dhan baa isugu yimi isagu ma daba socdo ee iyadaa daba socoto u yeedhaysa bale qur-aanku wuxuu tilmaamaya inay isku dayda inay kufsato u cararay bale way hanjabto waxay tidhi haddaad yeeli weydo waxaan ku amray xabsigaa lagu dhigayaa gabadha boqorka la tuma iyo xabsi buu kala dooranaya markaasuu leeyahay ilaahu xabsiga agtayda lagaga jeceliya inaan waxa ka samay maxaa u diiday miyaan u baahnayn ma ugu baahnaa waxa u diiday waa maxay waa iimaan baa jira iimaanku hadduu xoog leeyahay laa yazni zani xiina yazni wahuwa mu'min ama hadduu daciifo iimaanku daciifo haddii loo gacan haadiyo uu ka daba cararaya iyadoo cidina u gacan haadin hadduu bidhaanteeda arko inuu iska daba galabay u badantay waa maxay waa dacfun fi liimaan yani qofka kan controlkiisii baa yaraaday soomaalidu maxaa maamahooda ka mid ah waan baahanahay looma bahala cuna bay yidhahdaan soomaalidu yani insaanku wuxuu nabigu leeyahy walaa yashrab alkhamra xiina yashrabu wahuwa mu'min khamriga kama dhargo ama ma cabo marka uu cabayo isagoo mu'mina waayo hadduu iimaanku xad joogo isaga ka celin laha wuxuu nabigu leeyahy wax ma xado xadista dadkan dambe waxay moodeen in gaalka in la xada ay bannaantahay war waa isku mid gaal iyo muslimtoona tuugadu waa tuuga waa isku mid marka la lahaa waa gaal iyo waa muslim iyo waxaanad lahayn ood qaadataa tuuga ah tuugadu markaa waa isku mid nabigu wuxuu leeyahay tuugu wax ma xado isagoo mu'mina waxaa la tilmaamay wax ma boobo nuhba dadku ay kor wada eegaan isagoo maxay mu'mina waxaan oo dhan maxaa loo raaciyay isagoo mu'mina macnaheedu waxa weeyaan dacfun fi liimaan baa jira iimaankii baa liita dabeetana wuxuu noqday iimaan aan ka celinaynin maxay macaasida aan kaa celinaynin iimaanku markuu xoogoobana wuxuu noqdaa qofka controlka iska hortaaga maxay inuu macaasida tan sameeyo طاعاتku markay bataan iimaanku u kordhaa qofka markuu salaadiisu cibaadadiisu wardigiisu soonkiisu naan arag bisha ramadaan dadku inay wada malaa'ikta ku dhadhawaadaan yani bisha ramadaan dadku uu soomaa uu salaada uu cibaadada xumoo dhan baa yaraada waayo waxa batay maxay cibaadadii baa badatay cibaadadu haday badatana waxa yaraanaya maxay xumaha yaraanaya waxna waa soo cagsi haday cibaadadaadu yaraato waxaad ogsoonataa inaad xagga kale u socoto waxa badanaysa maxay macsidaada hadii cibaadadaadu badatana macnaheedu waxa weeye waxa soo yaraanaya maxay macsidaada soo yaraanaya qofku dhikrigiisu qofka bini aadamka ay maxaad xusuusataa maxaad xustaa maalintii ma dadkaad ka sheekaysaa hebel baa cayn ka maray hebel baa halkan ka maray dawladii baa cayn ka yeeshay qolada baa cayn ka yeeshay mise ilaahay baad ka warantaa qofka wardinaya ilaahay buu ka waramaya qofka subhanallah la alhamdulillah la ilaha illa allah ilaahay buu arabkiisa kaga waramaya ilaahay buu xuma ka hufaya ilaahay buu amaanaya idan waa qof ilaahay hadal haya iyo qof bini aadam hadal haya ma isku mid yihiin إلهي وحلا يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وكوا إيمانك لقاها ليو ورعررتي حولها يوحكني يا إلهي حسكي سيد ضعفني ومن يفعل ذلك بالليل فأولئك هم الخاسرون كوا صدة سماية يا أدونكو وكم مشغول يا إلهي حسكيس كوا سبا إلهي وكوا خساري الدبا أيها الأحبة واحد أكسوناتا إلهي وحينا أبور واحد أكسوناتا إلهي سبحانه وتعالى وحبو ينقو أبوري لا ينقو اتحاميه وحلا إلى هذا الشهوات النفس باهية إلهي جدك ينقو أبوري بني آدمك حوله وجعليه حول جعلك حمماه وأبور كاغا وإنه لحب الخير لشديد وتحبون المال حبا جما لكن وحكى الله إنه أبوري دمر جعيل يربوا إنه دمر كجعلي دمر كنا يرجع جعلي وباهي إلهي كو أبوري حالا يسكو أبوري
cunaad u baahantay laakiin waxa la yidhi waxaas oo dhan oo lagugu abuuray baan kugu itixaamayaa baa ilaahay ku yidhi haddaad sidaa u samaysana ajar baabad ku helaysaa haddaad sidaa u samaysana naar baad ku helaysaa baa lagu yidhi waadix soo maaha gabadh baad u baahatay haddaad guursato xalaal ugu tagtana ajar baad ku helaysaa ajar baa lagu helaa gabadha xalaasha mar kastoo loo tago ajar baa lagu qoraya xaaraantana waa cagsigeeda naar baa lagu helaya cunada xalaasha haddaad ilaahay cibaadaysa inaad ugu quwaysato aad u cunto ajar baad ku helaysaa xaaraantana maxay adaab baad ku helaysaa xoolaha xalaasha haddaad xoogsato ajar baad ku helaysaa xaaraantana dambaad ku helaysaa idan waan baahanay wax la yidhaahdaa ma jirto waa la ogyahay in baahida lagugu abuuray zuyina linnaasi xubu shahwaat من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث إلهي وحولي وحاصر بن آدم كوانو قرحية ضمر له عرور له حول له ذهب له فضة له فرد له بير له وحاصر له قرحية بالين لكن واحد يقول ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المال وحاصر موابل بركة الدنيا لوير هذا بقى wax kasto ifraad lagu sameeyo xadgudub lagu sameeyo waa dhib hadday hurdatay hadday cunatay hadday soo jeeday wax kasto waxa ka dhasha haddaad hurdada badsato oo cunada badsato oo soo jeedka maxaa ka dhasha waxa ka dhasha alghafla inaad ilaahay ilowdid oo aad caajistid oo cibaadadu dhib kugu noqoto waxaynu u baahanay marka alam yaani liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illaahi wamaa nazala min alxaq ilahay wuxuu leeyay war miyaanay gaadhin dadka mu'miniinta ah inay quluubtoodu ilaahay dikrigiisa ku khushuuco iyo wixii ilaahay soo dejiyey oo aanay la mid noqon baa ilaahay yidhi walaa yakuunuu kaladiina uutuu lkitaab sidii kuwii kitaabka la siiyey min qabl iyaga horteed oo fataala calayhim lamad oo wakhtigu ku dheeraaday faqasat quluubuhum وكثير منهم فاسقون waxaan ku soo koobaya kuma filla diinta inaynu haysanaa beri baan malcaamad soo dhigtay iyo beri baan iskuul soo dhigtay iyo beri baan dhowr kitaab wadaadiye akhriya kuma filla baddan aynu ku jirna sidaa lagagama baxo waxaynu u baahanay inaynu nolosheena renewal samayno ma jirtaa maalin aanad fool dhaqani waay maxaad subax walba u fool dhaqataa hadaynu bishii mar fool dhaqanno ka war waayo waxaad tiraa uskagu hadduu kugu sii raagraaga maxaa dhacaya armuu jermis noqda armuu ka noqda waa la mid sida kalena macsidu hadday isfulfuusho uskagaa isfulfuulay umay soo baxdaa marka dambe ilaahayba waad ilaabaysaa subxaanahu watacaala sida aad korkaaga uga shaqaynaysa aad u baahantahay qalbigaaga iyo iimaankaagana inaad uga shaqayso sida aanad subaxna u jeclayn dadku inuu ku arko adigoo xabajale ama aan soo cadayan ka waran ilaahayna wuxuu ku yidhi qalbigaagun baan eegayaay haddaad qalbi uska gala subax walba ilaahay kula soo kalaahdo haddana aad wax ka doonayso leedahay ilahu arrimaha ii fudaydi ilahu shaqada ii fudaydi ilahu caafimaadka haddana aad baryayso maalin walbana qalbi uskaga aad la soo kalaahdo qalbigu in la nadiifiyaa buu u baahan yahay oo ilaahay taacadiisa iyo cibaadadiisa iyo dikriga iyo istikfaar lagu nadiifiyaa buu u baahan yahay idan waxaan leenahay iimaankiina inaad kobcisaan baa u baahantihin meeshan aad joogtaan waa dhul khatara waa dhul culture idinka gadisan leh shubahaad tiro badan lagu hayo markaa waxaa u baahantihiin diintiina inaad si dhaba u barataan si qalbigiinu uu xasilo waxa u baahantihiin acmaal tiro badan leh inaad samaysaan si iimaankiinu uu koro waxa u baahantihiin dikriga xataa carabkiinu inaad badiso war nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo aan dambaabaynin ayaa waxay saxaabadu leedahay jalse quraanu ka tirinaa isagoo 70 jeer astaghfirullah yidhi ama le maalintii in 100 jeer ka badan baan astaghfirullah yimaada imisaad adigu astaghfirullaysataa maalintii ama imisaad tasbiixsataa mise tirada inooguma jirto kuwaasi
tirada waxa inoogu jira imisa suknaad baad qorataa ama imisa waraaqood baad dawladda ula tagtaa ama yani wixii hungurigana waxaad moodaa inaynu badaha uga tallawnay wixii masiirkaaga oo dhami ku xidhnaana inaynu ilownay wixii masiirkeena oo dhami ku xidhnaana inaynu ilownay waxyaabo yaroo fududna inaynu ku mashquulnay ilaahay nabigiisii maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi wasbir nafsaka maca aladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati walcashiy ku sabiroo la joog kuwa ilaahay xusaya baa ilaahay yidhi subxaanahu watacaala gelin hore iyo gelin dambaba kuwa ilaahay xusaya oo walaa tacdu caynaaka canhum isha ha ka lalinin baa ilaahay yidhi kuwa adigoo doonaya maxay turiidu ziinata alxayaati addunya hunguriga xaggiisa iyo lacagta xaggiisa ha u cararayna baa ilaahay ku tilmaamaya ee maxay u carara xagga cibaadada iyo diinka u carara haddaba ayuha alaxiba darsigaygu maanta wuxuu ku kooban yahay inaan idin tambiihiyo wax idin xasuusiyo oo ah meel khatara baa timaadeen geedi naarta ku socda ayaynu la guuraynaa dad aan ilaahay rumaysnayn ama gaalaabaad u timi waxaynu raadinaynaa wax yar oo dhaqaale iyo wax la nooc ah ka waran wax ka weyn haddaynu khasaaro markaa ninka diamond intuu tuuro quraarad qaata ka waran maxaad odhan lahayd yuu waalayhi mise uu miir qabaa intuu diamond iska tuuro quraarad la soo booda waxaa la mida ninka waxyigii ugu dambeeyey samada ka yimi sixistii ugu dambeysay ilaahay uu bini aadam saxay wixii ugu dambeeyey nebi loo soo dhiibo ninka intuu iska tuuro waxoogaa shilima dojmarka ama maxaa la yidhahaa yoora ah ka urursada in dhaqaalaha inuu ururiyo siista diintiisii yani waxa weeyaan waa bini aadamka ugu khasaaro badan qul ina alkhasiriina aladiina khasiruu anfusahum waahlihim yowma alqiyaama ilahay wuxu uhi war kuwa khasaaray ee naf iyo maalba khasaaray waa kuwa maalinta qiyaamo khasaara baa la yidhi yani kuwa diintiisa khasaara ilaahay subxaanahu watacaala waa gafuuru raxiim albaabkiisu wuu furan yihi waa ogyihi bini aadamku inay dacfa yihiin oo dambaabaan oo caynkan laakiin ilaahay albaabku inoo furay kullamaa ay soo noqotaan waa idinka aqbalayaa baa ilaahay leeyahay lama yidhaahdoba waxaasaan soo sameeye kaasaan soo sameeyey haddaad isbedelka aqbasho ilaahay wuxuu ku leeyahy waan ka aqbalaya idan aan toobadkeenno oo ilaahay u noqono subxaanahu watacaala oo isku dayno inaynu nolosheena dib u tajdiidinno dib u cusboonaysiinno oo iimaankeenna iyo caqiidadeenna iyo diinteenna iyo cibaadaadkeenna iyo salaadeenna dib u cusboonaysiinno yay noqonin su-aasha ugu badan ee aada wadaad weydiisaa shaqada salaadii baa lay diiday ka warran salaad iyo shaqaad si dhinac dhigaysa kee xoogan yani markaad diinta iyo waxaad ku gorgortamaysaa uu noqdo inaad ilaahay subxaanahu watacaala wixii ugu weynaayo uu ku faray ka tagtid oo aad wax yaroo kala siisato waa wax aada u liita markuu questionku halkaas soo gaadho waa meel khatara baa la maraya waana su-aalaha ugu badanee yurub lais weydiiyo marka waxaan kusoo koobaya ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana watacaala idinkii annagaba inuu diinta inugu sugo nebi maxamed ducooyinkiisa waxaa ka mid ahaa allahuma ya muqaliba alquluubi habit quluubana calaa diinik allahuma ya musarifa alquluubi sarif quluubana calaa taacatik ilaahay waxaan ka baryayaa inta kitaabka qabsata ee ku dhimata inuu inaga yeelo inta xaqa fahamtee raacda inuu inaga yeelo inta baatilka garata ee ka weecata inuu inaga dhigo islaamnimadeenna iyo diinteenna inuu kuwa ku noolaado ku dhintay inaga yeelo intiina dhashay ee dhimatay in alla u naxariisto inta noollayn arrimahooda alla u sahlo dhulkaynu ka nimina nabad iyo badhaadhe in alla siiyo iyagana in ilaahay xaqa tusiyo abaaraha iyo dhibaatooyinka haya in ilaahay ka qaado waxay ku farxaan oo bedelkeeda in alla siiyo subxaana watacaala innagana inagoo nabad qaba oo khayr wadana in ilaahay keeni inagu celiyo sala allahuma calaa muxamedin wacala aalihi wasaxbi wasalam alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin